Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan halkan kusoo koobaynaa qaybaha guud ee uu ka kooban yahay naxwaha afka Soomaaligu inaga oo aan guda galaynin oo hoos ugu dhaadhacaynin waxyaabaha uu af Soomaaligu naxwihiisu u kala baxo balse guud mar kooban ku samayn doona haddii la yiraahdo. Waxaan ka bilaabaynaa xaraf. Waa maxay xaraf? Xarfuhu waa aas-aaska dhammaan wax qorista, farta iyo higaada afka Soomaaliga guud ahaantiisba. Xarfuhu waxay ka kooban yihiin 21 shibane iyo 10 shaqal. Shibanayaashu waxa weeyaan xarfaha caadiyan oo af Soomaaligu ka kooban yahay intooda ugu badan ah kuwa waaweyn sida ba, ta, ja, ha iyo wixii la mid ah. Shibanayaasha waxaa ku xiga oo kale shaqal oo iyagu la'aantood aan la shaqayn karin oo ah kuwa inta badan isku xidhaya shibanayaasha. Waxayna u kala qabaan kuwa gaagaaban iyo kuwa dhaadheer. Shaqalka gaagaaban wuxuu noqon karaa a, e, i, o. Shaqalka dhaadheerna waa kuwan oo lasii laba jibaaray sida tusaale ahaan a oo a noqonaysa iyo e oo e noqonaysa iyo wixii la mid ah. Kuwan ayaa lasii laba jibaaraya si xarafku uu u noqdo markaa xaraf dheer. Waxaan kaloo ka hadlaynaa haddii la yiraahdo waa maxay weedh? Weedhu waa erayo koox ah oo wada socda qoraal ahaan iyo odhaah ahaanba, laakiin aan lahayn macno buuxa oo la fahmi karo oo qofka la hadlayo uu garan karo waxa laga wado iyo ujeedada ay xambaarsan yihiin midna. Tusaale haddaan usoo qaadano oday iyo wiil reer xamar ah. Weedhani waxa weeyaan wax macnaha uu guud ma samaynayso kaliya waxay noo sheegtay oday iyo wiil, laakiin ujeedada laga leeyahay mayna fahmin weli. Waxaa kaloo dhihi karnaa nin gadh leh. Ninka gadhka leh macnihiisu ma garan karno waxa laga wado, sidaa darteed waa weedh. Hawraar iyaduna waxay kaga duwan tahay weedha. Waa isla sidoo kale erayo koox ah oo wada socda oo leh macno buuxa oo la fahmi karo. Tii hore waxay ahayd lama fahmi karin, laakiin tan waa la fahmi karaa ujeedada iyo macnaha ay xambaarsan yihiin. Tusaale haddaan usoo qaadano waxaan dhihi karnaa waxaan raacaa geela. Waxaan raacaa geela waa erayo la fahmi karo ujeedada ay leeyihiin. Ragga nin baa gar leh. Tan oo kale waa hawraar maxaa yeelay waxay inoo sheegayaan macno guud oo la fahmi karo ujeedada laga leeyahay waana erayo wada socda. Waxaan kaloo isweydiin karnaa waa maxay fal? Falku waa qayb ka hadalka ka mid ah wuxuuna caddeeyaa wax kasta oo la falo ama la sameeyo. Falka la'aantiisna wax macnaha inooma samaynayso erayada aan isticmaalayno maanta haddaad heshid laakiin erey fal aadan kusoo diray erayada aad isticmaalaysid haba yaraatee macno buuxa kuma samaynayso waxaad ka hadlaysid oo lama garan karo. Falalka waxaa ka mid ah tusaale ahaan erayada cab, caddee, qoslay, cunaya, liqi doona iyo wixii la mid ah. Marka erayadaas waxay noo caddeynayaan falal xilliyo kala duwan dhacay. Tusaale haddaan usoo qaadano waxaan dhihi karnaa geela wuu qoslayaa, geedi wuu toosi doonaa, caasho ayaad halay timid. Marka kuwaas oo dhan waxay sheegayaan falal xilliyo kala duwan dhacay oo mid hadda dhacay, mid dhici doona iyo mid mataqaanaa dhacay oo lasoo dhaafay waqtigiisii. Qaybaha hadalka haddaba. Hadalka xubnihiisu waaweyn waxay guud ahaan u kala baxaan 9 qaybood. Kuwaas oo kala ah 1 qodob, 2 magacuyaal, 3 magac, tilmaame, fal, falkaab, xiriiriye, meeleeye iyo yaab. Intaas ayay u kala baxaan guud ahaan qaybaha uu ka kooban yahay af Soomaaliga. Waa maxay qodob? Qodobadu waa qayb ka mid ah hadalka gadaalna ka raaca magaca. Marka iyagu magaca ayay mar walba gadaal ka raacaan. Qodobku waa 7 marka ay magac keliya la socdaan. Tusaale ahaan 4 waa lab sida ka, ga, ha, a. 3na waa dhadig sida ta, da, sha. Haddii aan u kala qaadno oo tusaale usoo qaadano lab iyo dhadig si u kala yihiin 2 jumladood oo kala socota. Geele ayaa guriga jooga iyo naagta dheer waan aqaanaa. Labadan
weedhood ee isla socda. Guriga ga'da ka dambeysa waa qodob. Naagta ta'da ka dambeysana waa qodob sidoo kale waana lab iyo dhadig. Marka midda hore waa lab, ta dambena waa dhadig. Haddii magacyada qodobada laga reebo, waxaa haraya oo keliya sida magaca oo markii hore ahaa oo aan markii laga reebay qodobka wuxuu noqonayaa magac aan la aqoonin waxa uu yahay sida fure, loox, beel iyo wixii lamid ah. Ma naqaano waxaan la aqoonin weeye. Laakiin haddii qodobka lagu daro waxay noqonayaan wax la isla yaqaano oo la garanayo. Tusaale ahaan faraska, furaha, looxa, beesha. Marka wuxuu noqonayaa wax la yaqaano oo tusaale ahaan haddaan faras ku dhaho ma taqaan laakiin haddaan faraska ku dhaho waad garanaysaa faraska uu yahay. Qodobada wadarta ah iyo keliga. Qodobkii keligii ahaa qodobka markuu keligii ahaa labka ahaa wuxuu isku bedeli karaa dhadig haddii magacii uu marka hore la socday laga dhigo wadar. Tusaale ahaan qodobada dhadiga ah sidoo kale waxay isku bedeli karaan lab marka way isku bedeli karaan markii wadar laga dhigo mar walbaba. Haddaan kuwan isbarbar dhigno wiilka wuxuu noqon karaa wiilasha marka shacba raacaysa marka horena ka baa la socotay si fiican ugu fiirsa halkaas. Libaaxa a baa la socotay markii hore hadda wuxuu noqonayaa libaaxyada oo da baa raacaysa. Kursiga ga baa la socotay markii hore laakiin marka dambe wuxuu isku bedeli doonaa dhadig oo wuxuu noqon doonaa kuraasta. Furaha wuxuu isku bedeli doonaa furayaasha. Ardayga wuxuu isku bedeli doonaa ardayda. Marka dhammaantood markay wadar noqdaan qodobadu way iska bedelaan sidii hore oo si kale ayay isku bedelayaan oo waxay qaadanayaan qodob cusub. Magac. Magaca waxaan u adeegsanaa in lagu aqoonsado waxyaabo kala duwan sida dad, goobo, walxo, dad iyo wixii lamid ah ayaa loo adeegsadaa si aan u garanno wax uu yahay. Tusaale ahaan cabdi, warsan, faras, qorax iyo wixii lamid ah waa magacyo caadi ah oo aynu garanayno waxayna caddeynayaan dad iyo waxyaalo kala duwan. Magacu wuxuu kala baxaa magac guud iyo magac gaar ah. Magaca guud waa magaca loo siman yahay wuxuuna u kala baxaa magac muuqda iyo mid aan muuqan oo qarsoon. Magaca muuqda waa magaca la arki karo ama la taaban karo. Magaca aan muuqanin magaca muuqda waa sida tusaale ahaan dawaco, kursi, miis, qalin, jaamac iyo wixii lamid ah. Magaca qarsoon waa magac aan la taaban karin oo aan la arki karin. Tusaale ahaan aqoon, iftiin, been, run, jacayl iyo wixii lamid ah. Magac gaar ah. Magaca gaar ahi waa magaca u gaar ah waxa nool ama aan nooleyn sida dadka, magaalooyinka iyo wixii lamid ah. Tusaale ahaan xamar, warsame, Soomaaliya, wax harta dheh wax kasta oo hal meel loo yaqaano ama hal qof loo yaqaano waa magac gaar ah oo waxaas ayaa loo yaqaanaa. Waxaad samayn doontaa insha Allah inaad kasoo shaqeysaan sida halka ku qoran dhammaantood su'aalahan baad kasoo jawaabeysaan. Si tartiiba usoo daawo kadibna su'aalaha halkaa ku jira soo dir haddii la yiraahdo oo u dir macalinkaada insha Allah ama adigu si gooni ah uga shaqeyso.